السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إله نغدك كوها نوصن ددكنا هنونيا دمان ددك الصوماليات برنامج كقفاعو كدغيسانيا راديو بورن كنا داوانيا صومالي كنديان تي في برنامج كقفاعو maanto amaanina xada bisha July 7 2024 waxa barnaamijka marti noogu ah aqoonyahan siyaasi waa Rashiid Cusmaan. Hadaba dadka barnaamijka dhageysanaya waxa aanu Rashiid ka wareysanaynaa xaruntan rugta ganacsiga Canadian Black Chamber of Commerce waa rugta ganacsiga u dooda una diyaarsa sidii kor loogu qaadi lahaa ganacsiga dadka madow ee ku dhaqan dalkan Canada. Hadaba Rashiid oo kamid ah dadka la taliyayaasha ah waxaanu ka wareysanaynaa bal waxa looga warantaa Canadian Black Chamber of Commerce waxyaalaha ay qabtaan kuna soo dhawow barnaamijka Gufaaca Radio Program Somali Canadian TV wanigoo Tira Xaamud Suldaan Cali Cilmi Suldaan. السلام عليكم محمد iyo dhammaan bahda radio Boorame iyo Somali Canadian TV aad iyo aad baa mahadsantihiin fursadan ay siiseen inaan idinka warramo ama dadka Soomaaliyeed uga warramo ururka la yiraahdo Canadian Black Chamber of Commerce CBCC ama af Soomaaliga loogu yaqaano rugta ganacsiga ee dadka madow ee dalka Canada ku nool ama rugta ganacsiga ee dadka madow ee dalka Canada. Haddaba rugta ganacsigu waa rug ganacsi oo dooda una diyaar ah sidii kor loogu soo qaadi lahaa ganacsiga dadka madow ee ku nool waddankan Canada. Rugtu waxay bixiyaan barnaamijyo lacag la'aan ah oo loogu talagalay ganacsatada ganacsi u furan yahay ama kuwa doonaya inay ganacsi cusub furtaan. Dhinaca kalena waxay fududeeyaan deymaha ganacsi ee bangiyada. Tusaale ahaan business baad leedahay ganacsi baad leedahay ganacsigii baad doontay inaad kordhiso ama meel kale inaad ka furato ama inaad ballaadhiso marka bangigaad deyn doonatay bangigii baa deynta kuu soo diiday hadee jeerna way dhacdaa dadka madow way ku dhacdaa marka ururkan ama rugtan ganacsigu way ku doodaysaa inuu bangigu kuu fududeeyo deyntii aad u baahnayd. waxaana lagu diyaarinayaa way kaa caawinaysaa sidii aad u samayn lahayd proper business plan fiican oo aan dee bankigu criteria raacaa hab u raacaaye habkii waafaqsan. haddiiba ay dhacdo inuu bankigu kuga adkaysto rugta ganacsigu waxay deyn kaaga doonaysaa urur kale oo ay xiriir la leedahay oo markaa deyntii ku siinaya. haddaba hadafka CBCC ama rugta ganacsiga ee dadka madow ee dalka Canada waxa weeye sidii loo kobcin lahaa ama loo abuuri lahaa dhaqaale kobcin jiile ah ama waxaynu naqaano to create generational wealth. haddaba CBCC ama rugta ganacsiga ee dadka madow ee dalka Canada waxay bixiyaan 6 program oo loogu talagalay ganacsiga sameeya 10,000 ilaa wax ka yar 10,000 iyo wax ka badan iyo 100,000 iyo wax ka badan. marka kii 10,000 sameynayay programyadani waxay u gaarsiinayaan ama ka caawinayaan sidii u gaari lahaa 100,000. kii 100,000 sameynayay
ganacsigii 100 kun sameynayay siduu u gaari lahaa 1 milyan kii 1 milyan ganacsigii 1 milyan sameynayay siduu u gaari lahaa 2 milyan iyo 3 milyan iyo wixii ka mid ah wixii la mid ah waxa kale oo ay rugtu bixisaa program gaar ah oo loogu talagalay laba program oo gaar ah oo mid uu yahay clean tech iyo sustainability waa technology-yadan loogu talagalay inay wax ka qabtaan environmentka kombaniyada ah iyo mid loogu talagalay dumarka oo ah STEM STEM-kaas wax weeyaan waa science technology engineering and mathematics qof kasta oo xamadow ka qayb gala ama dhamaysta mid ka mid ah programyada freega ah ee rugtu bixiso markuu dhamaysto programka oo sidiisaba socda 10 week ilaa waxaan u jeedaa 10 week ilaa 12 week oo kuna baxa online hal saac ama hal saac iyo bar weekii wuxuu helayaa oo la siinayaa grant $1,000 grantkaa wax loogu talagalay in ama uu ku samaysto ku xayeysiiyo businesskiisa ama ku advertise gareeyo ama inuu sida website-ka oo kale ku samaysto ama inuu matalan computer iyo waxyaabo u baahan yahay uu ku iibsado marka qofku dhowrka program hadduu iska daba qaato waxa ugu badan uu qaadan karaa waa 4 jeer oo ah $4,000 marka haddii adiga iyo businesskaaga wuxuu ka faa'iideeya baranaya isla markaana markaad programkii dhamaysato $1,000 oo garanta lagu siinayo provider aad leedahay dee business shaqaynaya iyo business ku register garaysan ama waxaan jeedaa business ku register garaysan dee waxa weeyaan waa wax aad looga faa'iideysto marka waxa kale oo ganacsade kasta ama qof kasta oo programka ka qayb qaata oo programka ka qayb qaadanaya uu access u yeelanayaa 2 software oo loogu talagalay kobcinta businesska marka dad badan oo dadka madow ee dalkan Canada ku nool aad bay uga faa'iideysteen Soomaalidu aad bay ugu yar tahay sidaa daraadeed baan xamadow wareysigan ku siiyey si ay dee Soomaalidu uga faa'iideysto oo dee programyadan businessadooda lagu ama ganacsigooda lagu kobcin lahaa wixii faahfaahina amaba qofkii dee interested ku ah horta wuxuu eegi karaa dee website-ka organizationka oo ah Canadian Black Chamber of Commerce CBCC dhinaca kalena wuxuu igala soo xiriiri karaa anigoo Rashiid Cismaana numberkayga 647-299-7721 marka waxaan dhammaan dadka Soomaaliyeed ee dalkan Canada ku nool ama ganacsi leh ama ganacsi interest gareynaya ku boorinaya inay programyadan ka soo qayb galaan oo ka qayb qaataan cilmiga ay ka helayaan ay ka faa'iideeyeen ayaa wax loo dhigaa aanu jirin marka waa ka aad iyo aad ba u mahadsantihiin dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu